waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan kulan ay soo qabanqaabiyeen ururka Forum for Refugee oo lagu taageerayay in dib ugu soo laabto Sheekh Shariif xukunka dalka doorashada kadib. Kulankan oo lagu qabtay xerada Xagardheer ayaa waxa uu ahaa mid si wanaagsan loo soo agaasimay, waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaasha xerooyinka qaxootiga sida gudoomiyaasha xeryaha, gudoomiyaasha haweenka xeryaha, gudoomiyaasha dhalinyarada xeryaha, waxaana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo cuuryaamiinta. Kulanka oo laba goobood oo ka tirsan xerada Xagardheer lagu qabtay ayaa markii hore waxa lagu qabtay xarunta hay'adda Handicap, iyadoo markii dambena lagu qabtay hotelka Badbaado oo Xagardheer ku yaala. Bilowga kulanka ayaa lagu furay aayadaha Quraanka Kariimka, waxaana mikrofoonka lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha ururka Forum for Refugee Qaasim Sheekh oo ka hadlay ammaanka xerooyinka qaxootiga in ay door muhiim ah ka ciyaaraan qaxootiga. Waxa uuna sheegay 4 qodob oo uu Sheekh Shariif u soo dhiibay gudoomiyaha Qaasim. kulanweed ee dhacay waxa waaye wixii hadda gaar ka dhacay waxayna saabanaysaa dadkeena qaxootigeena anigoo dhan saabanaya maalin walbana way dhacay wixii ifoo ka dhacay waxyaabaha anaga dhaxdeena isku hayno haddana markay dadka anaga soo ugu galno oo gudaha dalka la galaan dhibaato weyn hadda Nairobi oo kan dadka kuma noolaan kara dhibaato adag ah dhibaatadaas dalkay saameysay waxayna ka imaatay marka waxaan ka damqanaynaa wixii meesha ka dhacay ama gaar ka dhacay ama meelaha kale Nairobi ka dhacay aad baan uga damqanayn waana ka xunay kulligeen inaan ka dhidhino. Kulankan ayaa lagu soo bandhigay 4 qodob oo ay ka sideen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed. 4taasi qodobna waxay kala ahaayeen: qodobka koowaad ayaa waxa uu ahaa salaan ay ka sideen Sheekh Shariif oo uu soo diray qaxootiga xerooyinka Dadaab ku jira. qodobka labaad ayaa waxa uu yahay madaxweynaha Soomaaliya oo ugu baaqay qaxootiga in ay kula noolaadaan dadka Kenyaanka ah ee walaalahood si nabad ah, sida uu sheegay gudoomiyaha Qaasim. marka koowaad annaga dad maaragtaa qaxooti ah oo dad maaragtaa Soomaali oo qaran ahay oo dhul loo degan baan nahay si kastaba aan soo qaxnay oo dad baan u nimid dawladda Kenya wayna soo dhaweysay waxaan ku helnay nabadgelyo waxay noo weertay adduunka dholol baan ku helnay ilmihii meeshan ku dhashay baa wax ku dhalay waxbay ku badeen dawladda inta noo sameysay ee dadka loogu yeertay ma abaalkeeda ma wax yarba
marka horta dadkii maaragtaa ayada ay noo soo dirtay ama noo sabafalahaya ama maaragtaa ay noo socday ama dawladda ayada ahayd in dib lagu sameeyo oo la qarxiyo oo la gubo oo dadka laga laayo wax sax miya marka koowaad meesha aan joognayna nabadgelyadeena annaga aan gacanteena ku haysano oo soo ceshano muhiim waay haddii dhalinyarada odayaasha liidharada haweenka dhammaan baloogaha aan ku noolnahay inaan ma aragtaa qof wax qarribaayo lagu qariyo oo dad laga dhigto hoosta la gasho dad ma ku jirta dawladda yay kala garan markii maanta ruuxu baloo ka soo bax uu hadleeyo oo biih la jaro oo wax la hadleeyo oo dadka laga kala fiiriyo meesha maxaa dhacay naan ku noolaanayna marka dhulkeenina ma aadayna oo bas waa dhibaatka naga keenay intana ma dhib kalaan ku qabayna marka meel kasta oo Soomaali tagta marka in Nairobi la joogi waayo oo meel walba la joogi waayo oo dadka la xirxiro oo dawladda dadka la ka suwaysaa dhacay saa darteed ana nolosheena ka fikirno oo waliba dhalinyarada ay dadaasho baa muhiim ah hooyooyinka ay dadaalaan oo dadka ayaga way maanay oo la baryaayo oo biyi ka goonaysaadka ka goonay oo ayaga qarribahay daba socdo horta dib bay tahay taas inaanaga aan ka foojignaano oo dawladda la shaqeeyno oo ammaanka wax ka sugno oo dadka deegaanka aan nabad kula noolaano oo aan colaadda iyo wax dadka abuurahay dadka isku horkeenay dawladda ku horkeenay ka dhaafaa taa inaan ka shaqeyno balan miya soo har annaga Soomaali baan nahay 20 sano ka badan meesha dhibka nagu haysto iyo dalka adduunka wax nagu haysto ma ogid gudihii dalka wax ka jira soo ma ogid ma ku sii jiri karnaa maxaa nala gudboon marka nabad ka shaqeyno والله وحنا نبدينا mana deeqa kan waa ree hebel aan doona kan waa ree hebel lama qaadanay mana deeqa urur hebel iyo urur hebel mana deeqa inaa annaga qaxooti baan nahay waan ka gudubnay qabiilka iyo qurubka qoloog baan ku wada noolnay ammaankeenana aan ilaashino dawladana aan la shaqeyno muxuu ahay nolosheena si bal ay soo tarto maxay ajaanibka noo soo safreen noo shaqeynayaan la afduubo meel lala aaday madanba ninkii sameey wuu nagu dhex jiraa wuu nagu soo hoynaa xaq miya inaan qaran xaq miya qodobka kale ee Sheekh Shariif u soo diray qaxootiga ayaa waxa uu ahaa inay dawladda Sheekh Shariif ahmiyad siinayso dhalinyarada qaxootiga wax ku bartay haddii ay soo codsadaan shaqooyinka dawladda qodobkaas ayaa si aad ah waxa uu soo dhaweeyay dhammaan dhalinyaradii kulanka ka soo qayb gashay waxaana ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada xerada Ifo Liibaan Rashiid bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Liibaan Rashiid anigoo ku hadlaya afka ururka dhalinyarada saddexda hare ee qaxootiga waxaan marka hore u hambalyeeynaa dhammaan dadka qaxootiga ah ee sharafta leh ee maanta ka soo qayb galay xafladan iyo maamuuskan aan u sameynayno isla markaana aan ku soo dhaweynayno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Sheekh Shariif annaga waa taageersanahay 100% waxa aaminsanahay inuu wax weyn u qabto ummadda Soomaaliyeed markii laga soo bilaabo 2006 markii uu maxkamadaha madaxda u ahaa hadda uu madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed u yahay wanaag badan ayuu sameeyay mustaqbalkii ummadda iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo dib u dhiska dalka dhammaan uu ka shaqeeyay waxaana annaga hadaan nahay ururada dhalinyarada iyo qaxootiga aan u dooranay in uu xukunka sii hayo madaxweynaha inuu isaga sii ahaado inuu jiro inuu joogo waxaan kaloo mataqaanaa aan madaxweynaha leenahay waanu kugu soo dhaweynaa xariyaha qaxootiga dhadhaab 9 mataqaanaa 550 kun iyo in ka badan waa nus milyan Soomaali ah oo Soomaali u badan ayaa qaxootiyada ku nool waxaan leenahay soo dhawaaw dadkaadiyaan nahay dalkeena waa jecelnahay inaa u soo noqono ayaa rabnaa markasta waxa laga hadlaa diaspora iyo dadka Soomaalida oo mataqaanaa dibadaha jooga annaga qeyb ka nahay waxaan nahay dadka jecel in ay dalkoodii iyo dadkoodiba wax u dhisaan wax u qabtaan mas'uuliyadda garbaha ku qaataan waanu ku soo dhaweynaa Sheekh Shariif hajiro hawaaro hajiro haguuleysto hanoolaado dhammaan dadweynihii xafladda ka soo qayb galay iyo hogaamiyaashooda ayaa waxa ay ka hadleen oo ay xoogga saareen sidii qaxootiga ay uga qayb qaadan lahaayeen ammaanka xeryaha ay ku nool yihiin دفاع بان كل على جونا وعي وسلامه حقي الدفاع بان كل على جونا
حقي الدفاع بان كل دعال جونا دعائي السلام حقي الدفاع بان كل دعال جونا qodobka afraad ayaa waxa uu yahay in qaxootiga ay taageeraan Sheekh Shariif maadaama intii uu xilka hayay uu wax la taaban karo u qabtay doorashada soo aadan ee 20 Agoosto wixii ka dambeeyay la rajeynayo in la qabto qodobkaasi dhammaan ka soo qaybgalayaasha waa ay soo dhaweeyeen Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waxaan ugu hambaleynayaa xalfadan meeshan maanta uu ka dhigay madaxweynaha doorashada u taagan Sheekh Shariif Sheekh Ahmed hal mid ayaan ka codsan lahaa midaas oo ah xiriyaha qaxootiga u yimaado oo uu la hadlo doorashadiisan diyaar u nahay haddana Soomaali inaan u aado waa qodob sakeeyo gacalkana caroode hagaagixin sareeyo agay labin sareeyo oo yuu sugi dadkeenni waa adi dadku sugi waa adi dadku sugi ku dadaali kara nabad idinkoo isku duuban Soomaali magaceed dib u raadiyo helaa ee dawladdu waa dadweyne adaa dooran kara ki daacado dadka u ronkaana waa Shariif mid kale aan ku darayaa Shariif waxa weeye waa nin Soomaaliya oo ku haboon mar labaad in lagu celiyo Allahumma barak دعال جونا دعائي السلام حقي الدفاع بان كل دعال جونا الدفاع بان كل دعال جونا دعائي السلام حقي الدفاع بان كل دعال جونا